أبوجا عدالة ربنا أبوجا عدالة ربنا وريه أبوجا عدالة هاهلو وريه أبوجا عدالة هاهلو وريه أبوجا عدالة هاهلو وريه أبوجا عدالة هاهلو sida aan ugu xunnahay xariga sharci darrada ah ee maanta 44 jirsaday ee lagu hayo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Mahdi oo ku magac dheer Abuja oo ahaa ama tifaftiraha idaacadda madaxa bannaan ee Higsi oo si sharci darro ah loo xiray si sharci darro ah xabsi ugu jira wax maxkamada aan la horkeenin isla markaana aan loo ogolaanin xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta dhan ay leeyihiin oo ah in qof kasta oo la xiro ama la qabto la geeyo maxkamad loo sheego wax lagu haysto loo ogolaado in qoyskiisa ay booqan karaan loo ogolaado in dhakhtar uu heli karo isla markaasna la siiyo xuquuqda kale ee nolosha oo ay ku jirto caafimaad iyo in meel fiican lagu hayo waxaan halkan u taagannahay cabasho aan ka qabno xariga muddada dheer uu xiran yahay wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuja oo la xiray muddo hadda caawa ay u noqonayso 45 cisho oo ah hal bil iyo bar waxaana uu ku xiran yahay sidaan aaminsannahay sharci darro sababtoo ah ilaa hadda wax maxkamada lama keenin wax sharci la hor keenay ma jiro xitaa sababta loo haysto lama sheegin marka waxay muujinaysaa annaga haddaan nahay suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan dalbanaynaa qof kasta in uu cadaalad helo sharciga tilmaamaya sharciga saxaafadda qorana tilmaamaya inaan qofna la iska xiri karin dastuurka ayaa madax banaynaya qofka inuu xaq u leeyahay in ma dacwad lagu soo oogi karo laakiin 48 saacadood aysan ka bad 2019 ayaynu ku aadanayd maxamed isagoo gurigiisa ku soo socda ay baabuur ku hor jireen sida hore loo sheegayba xabaday ku gameen lugna waa ka jabiyeen saldhigga shibisay ku xirteen habeenkii 8 saacan ka soo daynay subaxdina xad gudubka lagu sameeyay ayuu ka diyaariyay qoraal war ka diyaariyay maxamed sidaas xilligaas waxay ka bilowday sidii ay uga daba qaateen niisa shibis ilaa iyo hadda heerkaan ku keeneen waa caga jugleynaa jiro jirdila jiro lugay ka garaacnay innaha waa ka xireen meel qaas oo ay geysteen wax la qarihay male intaasoo dhanna waxa ka dambeeya niisa shibis waa is yaqaanaan waa isugihiin saadarteed waxaan dawladda ugu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre xildhibaanada labada gole waxaan ka codsanayaa in aysan ku fiirinin shacbiga Soomaaliyeed qaas ahaan suxufiyiinta lagu tagrifalaayo lagu joorfalaayo lagu xadgudbaayo la dhibaataynayo magacay waa Amaal Yuusuf Macalin waxaan ka mid ah wariyaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan si xushmad ku dheehan tahay aan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha dawladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan uga codsanaynaa in xorriyadiisa la siiyo wariye Abuja oo muddo 42 cisho ku xiran magaalada Muqdisho waxa ayaan daraa inaan ku noolnahay wadan wariyanimada ay tahay dambi yani wadan loo aqoonsan yahay qofka wariyaha wax kasta uu qoro inuu yahay wax uu ku dambaabay ama uu madax ugu gafayo in wax la qoro warna la sheego waxa qoraya dastuurka waxaana u ogol qof walba in uu wax wixii uu arko ama maqlo ee saxa uu gudbiyo Abuja waxa uu kamid yahay wariyaasha Soomaaliyeed ee wax ka qora warbaahinta iyo dhacdooyinka dhaca waxaan u arkaa xariga Abuja in marka hore uu ahaa sharci darro sababtoo ah isaga oo aan la eedayn warqad maxkamad la haysan ayaa la xiray waxaan isku soo baxnay anoo ku hadlayo magaca meediyaha ama magaca warbaahinta Soomaaliyeed in wariye Abuja inuu cadaalad helo in la soo deeyo 40 cisho ka badan uu xiran yahay wax sharci kuma xirna wax lagu haysto ilaa hadda kama war hayno qof shakhsiyad uu xiran yahay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed hay'adaha amniga hay'adaha ku shaqada leh in arintaas jawaab degdeg ka soo bixiya madaxda dalka arintaas jawaab degdeg ka soo bixiya waxaan codsanaynaa inuu